Bismillah, maalin wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kasta joogtaan ku soo dhowo kanaalkeena YouTube-ka Ali Ase Online oo idin soo diyaariyay aniga oo ah Cali Maxamed Usmaan Cali Baashi. Insha Allah videogan maanta waxaa ku soo qaadan doonaa sida loo isticmaalo copy formatting. Copy formatting sidoo kale waxaa ka heli kartaa Microsoft PowerPoint iyo Microsoft Word, laakiin maanta waxaa ku isticmaali doonaa ama ku soo qaadan doonaa oo kaliya sida loogu isticmaalo Microsoft Excel. Okay, ka hor intaana videogan maanta gudagalin, haddii aad ku cusubtaa kanaalkeena YouTube-ka Ali Ase Online, fadlan soo dhowow inagu taageer, like, subscribe iyo share. Intaba waxay noo tahay run ahaantii dhiirigelin. Sidoo kale waxaa aad iyo aad ugu mahadcelinaya walaalaha ku taxan oo had iyo jeer kommentiyada quruxda badan iyo like-ta, share-ta, engagement-iga wanaagsan aad samaynaysiin aad ayay dhiirigelin inoogu tahay. Kanaalkan had iyo jeer waxaa soo dhignaa videoyaal dhiirigelin, videoyaal lagu baranayo markaas teknolojiyadda iyo videoyaasha ama su'aalaha aan naga soo dalbataan in aan ka soo sameyno video. Aad ayay ugu mahadsantihiin. Videogeena maanta ama cashirkeena maanta ha inoo bilowdo. Sida caadiga ah, markaa rabto inaad cell copy ka samayso, waxaa samayn jirnay waa taabanaysaa, kadib waxaad taabanaysaa copy, god kale ayaa tagaysaa, waxaad tagaysaa markaas paste. Sidaas ayuu meesha ku imaanaya. Hadda ma u baahanin, waxaad taabanaynaa back. Haddii aad isticmaalaysa Mac, short formka waa command C, god kale ayaa tagaysaa command V. Markaan waxaa samaynay direct copy ama toos ayaa usoo copy garan, ma u baahanin. Marka waxaa u baahannahay sidaa soo sheegnay ama waxaa soo qaadan doonaa formatting. Tusaale ahaan godkan ama titlekan, safkan waa titlekan ama waa ciwaan. Haddii aan rabo inaan wax ka bedelo, bold ayaa ka dhigi karaa. marka hore godka inaa doortaa, bold ayaa ka dhigaya. Fontiga waxaa weyneynaya farta cabirkiisa. Sidoo kale backgroundka ayaa weyneyn karaa. Waxaa ka dhigi karaa buluug ama color kale waxaa rabta ayaa ka dhigi kartaa. Farta waxaa ka dhiganaa cadaan. Qoraalka xoogaa noo soo yaryarey. Haddii aan rabo godkan titlekan in aan fartaan oo kale, cabirkan oo kale, backgroundkaas oo kale inaan keeno, waxaa kaliya u baahanahay inaan midkan tago, copy, right click copy, kadib godkaan rabo ayaa geysanaya, click siinaysaa, kadibna right click, paste special, kadib waxaad tagaysaa formatting. Farti cabirkeeda wax kasta waa isku mid. Okay, hadda labadan god haddii aan wada calaamadeeyo, farta aan yareeyo. Okay, backgroundka haddana waa calaamadeyna, backgroundka ayaa ka bedelaya. Waxaa ka dhigaynaa colorkaas. Fontiga waxaa ka dhigaynaa madow si loo arko. Hadda waxaa rabaa labadan god inaan copy ku sameeyo. Waa taabanaya. Hal mar ayaa marka formatting ku sameynaya. Intaa right click sameyn lahaa, copy ku dhihi lahaa, waxa kaliya sameynaya copy formatting. Markaa ku aadiso falaarta hoos ay kuu soo qormaysaa copy formatting from one location and apply to another. Copy markaa taabto, u fiirso, muuskii wuu isbedelay. Godkaa taabto, wixii tilaabooyinka qaaday markaa salkan wax ka bedelayo oo dhan copy ayay tahay. Click meesha ku siiyo, way isbedelaysaa. Laba god ayaa isbedelaya markiiba. haddana mar kale waa inaad tagaa, midkaa rabaa soo qaadanaya, waa calaamadeynaya, kadib copy formatting, godkaa rabaa tagaa. kaasina wuxuu ahaa marka aad selka toos ugu soo copyeynaysid. Click ayaa siinaysaa, copy formatting, meesha rabta ayaa calaamadeysanaysaa. Okay, kaasina wuxuu ahaa titleka ama selka ama godka keligiis markaa wax ka bedelaysid formattingkiisa. Haddii aan rabo range waxaa la dhahaa godad badan oo isla socdaan, columns iyo rows. Tusaale ahaan columnskan iyo rowskan ayaa wax ka bedeli doonaa. Qaybtan waa ciwaan, waxaa u sameyn doonaa background ayaa u sameyn doonaa. Backgroundka C buluug aad ayaa u jeclahay. Waxaa siinaynaa backgroundkaas. Fontiga waxaa ka dhiganaa cadaan. Okay, kadib waxaa gelinaynaa marka border. U fiirso inta tilaabo aan raacay. Qaybtan 1 2 waxaa ka dhiganaa italics. Hoosta nooga xariiqi, bold ka dhig. Hadda tilaabooyin badan ayaa qaadnay si aan u sameyno ama naqshadan aan usoo diyaarino. Haddii aan rabo isla naqshadan inaan kasoo koobiyeyo, wax kaliya u baahanahay inaan wada calaamadeeyo. Kadib waxaa tagayaa
formatting click ayaa marsiinaysaa oo keliya waa soo qaatay inta aan rabo ama godadka aan rabo dhan in aan ku paste gareeyo ayaa calaamadeynaya sidii kuwa aan hore usoo qaato kale ayuu noqday aan ku laabto back dheh u fiirso hadda godadka rabo inaan kasoo koobiya ayaa taabanaya waa range godad badan kadib formatting click ayaa siinaysaa kadibna inta god aad rabto ayaa calaamadeysaa isku mid ay noqonayaan okay sidoo kale haddii aad rabto in aad maaragtay rowga oo dhan aad mid color ka dhigato midna cadaan ku diiso mid kale color kale ka dhigato waxaad samayn kartaa tusaale ahaan rowgan godkan ayaa waxaa ka dhiganaa backgroundkiisa color kale okay haddii aad rabo inaad godkan ku copy gareeyo u fiirso qaybtaas hoose handle fielka pluskaas marka waxaa la handle field meesha laga qabto haddii aad qabto oo right click ku siiyo left click u fiirso wax dhacaya meeshii waa hal ayaa la keenay waa qalad back ama control z naga dheh markaas okay marka waxaan sameynaynaa marka fill handleka ujeed inuu calaamad pluska noqdo madowga kadib waxaad sameynaysaa farta midigta ayay ku dhufinaysaa right click kadib waa qabanaysaa waa ku jiidaysaa ilaa meesha aad markaa geyso waa sii daynaysaa kadib waxaad taabanaysaa fill formatting only ma u baahnay inaad copy ku sameyso formatka bas ayaa rabnaa markaad sameyso colorkii backgroundka waxaa laga bedelay okay haddii aad rabo inaad soo qaato waa wada calaamadeynaya formatting hal mar ayaa click siinaysaa godkaa rabta ayaa keensanaysaa saasna marka haddii uu badan yahay godadka ay badan yihiin saas waa samayn kartaa okay sidoo kale haddii aad formattingka laba mar click ku siiso tusaale ahaan godkan oo kale formatkiisa inaa qaata ayaa rabaa laba mar ayaa click ku siinaya u fiirso double click markan wuu haystaa oo miga baxaya markaas godkaa rabo ayaa toos tagaya waxaa sameynaa marka meesha rabo ayaa maaragtay geen karaa marka copyga awatay ama formattingkii awatay meesha rabo ayaa geysan karaa okay kaasina wuxuu ahaa sida loo isticmaalo copy formatting haddii aad rabto inaad ku isticmaasho Microsoft Excel videogan maanta oo idin soo diyaari anigoo cali maxamed ismaaciil baashi intaas ayaa kusoo koobina insha Allah waxaa noo soo socda videoyaal kale aad iyo aad u badan waxaa jeclaan lahaa inaad kanaalkan ku taxnaataan oo asxaabta la wadaagtaan si aan maaragtay u wada faa'iidaysano waxa su'aalaha ama waxyaabaha culayska naga haysana la soo wadaag anigana insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan video ka soo sameeyo waana mahadsantihiin isku soo noqosho wanaagsan mar kale waan anigoo idin leh mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh